ahayd 13 bishii 12/2017 markii xilka loo dhaariyay talada dalka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isla markaanu kaga galbaday madaxweynihii hore mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan ayaa muddada talada xilka loo dhaariyay waxa ka soo wareegtay 12 bilood inta aynu buuxsamin hoggaanka dalka ayaa xukuumadda uu gadwadeenka u yahay mudane Muuse Biixi Cabdi waxa jirtay dhaliilo badan oo kaga imanaya xisbiyada mucaaradka iyo asxaabta kale ee mucaaradka oo ku aadan habka ay u shaqeynayso xukuumadda iyo walaac ay ka muujiyeen sansaanta sanadaadka soo socda haddaba telefishinka caalamiga ee Xoriyad 24 TV waxa uu guur galay si uu wax ugu ogaado xaaladda ay ka aaminsan yihiin shicibka ku dhaqan Hargeysa ayaa markaan wax ka weydiineen waxay sheegeen in xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aanay dalka wax u qaban waa sida hadalku dhigeen badidooduna ay kaga soo horjeesteen waxayna hadaladoodii kamid ah sida tan wax fara badan buu qabtay inkastoo madaxweynaha cawaaqib fara badan ay ka hortimi laakiin wax qabad lagu dirsan karo uu qabtay ciidankii mushaarka u kordhiyay wadankii oo maamul fadin ku sameeyay oo ciidanku meeshii deganay kor uga sii qaaday Allahumma salli ala Muhammad horumar fara badan oo kamid ah oo sameeyay arrimo diblomaasiyadeed iyo arrimo kala leh aad buu sameeyay madaxweynuhu horumar fara badan oo wadanka gudihiisa waa maasantay walaal ma qabsan garfan kale bilow anagu waxyaabo qabtay Muuse Biixi waxa kamid ah horta xagga ciidanka si fiican buu soo dhisay laakiin waxa la leeyahay wadankan lahayd anagu meel aan u shaqo tagno ma hayno halkii radaan wax ku iibinayna iyo suuqeena wax ku iibinayna wax la yiraahdo dhiganna marka waxaan ka codsanaa dhalinyarada inuu amal u sameeyo dhalinyarada taasaan ku hadlaya waa maasantay ku soo dhaw walaalo barnaamijka Reega Dadweynaha ee Xoriyad 24 TV waa ku dhawahay walaal waa ku dhawahay magacayga haddaan ku sheego magacayga Cabdirasaaq Sheekh Ibraahim Shaqaariye weey waata Cabdirasaaq hal su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo diyaar mootay inaad iga jawaabto waa aad wadi weydiin kartaa wax walba waxaan su'aashan ku weydiinaa waxa tahay sidaad u aragtaa wax qabadka xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland uu gadwadeenka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweyne Muuse Cabdi waxa weey waxna waa u qabtay waxna wali waa failed منو شكلها وحيالها قبيضة ونقول قبم waxa kamida shaqa abuurkii oo meesha oolin waxa kamidoo kale la mustacaan askarta oo mushahar ku filan la siinayn oo ay wax walba u dhili gareen maxay argagixisa jiidan karayso inay cid walba jiidan karayso Allah mustacaan asaasigii kale ee garanaysa miciishadii wali way maxay ahayd wali sicir bararka waa jira wali wax aba yaraato oo la dhaqaajiyo ma jirto ta kale uu ku fiican yahay wax weey Muuse Biixi Cabdi uu ku fiican yahay lacagihii la guran jiray ama sida qaldan u bixi jiray uu handaraabka ku jiiday taasna uu ku fiican yahay waana ugu hambaleynaa taas magacayga ku bilaabay walaal wax la yiraahdo Nuuridiin Cabdi Xaaji Maxamuud anigoo bulshada kamid ah magaalada Reer Soomaaliland ganacsatada maadaama ay cabashada iyo waxyaalaha ay dadku inta badan cabasho badan ay muujinayaan dad dawladana ay dhaliilayaan kulli hadana inay xal u sameeyso wada Cabdikariin hal su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo diyaar mootay inaad iga jawaabto su'aashan ku weydiinaya waxay tahay sidaad u aragtaa wax qabadka xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gadwadeenka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi waxa la xukuumadda iminka dhalatay kulli waxa la sugayaa midhaheedii waqtigeedina laakiin lama taagna laakiin dadaashan dawladdu ayaan rajaynayaa insha Allah qabatay laakiin taa badan ma qaban waayo wixii magaranaysa badnaa wixii badnaa ma ay qaban laakiin waxa iska meeraysaa galbeed galbeed iska meeraysaa anigu way Muuse waa salaamaya waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland waa mid laakiin inta kala saarin waa walaalo weeyaan taasa gacana markaa waxaan leeyahay anigu Muuse kaambeynka waxaad ku gashay waxa sareynaya sharciga markaa Muuse sharciga waa ka baydhayo maanta kii hada uu xidhaya kii hada uu xidhayaa waxaan leeyahay soo noqo iminka waxa soo dhow doorashadii golaha wakiilada taana ka heshiiya komishinkana waxaan leeyahay mid komishinka waxaan leeyahay midoo waxaan la idinku diidayaa waxba bedeshin
haddaad bedesheen laakiin de muuse wuxuu yidhi aan u bedeli maayo ya taana waxaan leeyahay waa la kala tegayaa haddaad bedeli weydo kushinkaa سعيد أحمد wata cabdi siciid hal su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo diyaar ma u tahay inaad iga jawaabto ها su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay sidaad u aragtaa waxqabadka xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ee uu gadhowdaynka ee mudane muuse biixi cabdi ها سوى عم بانو أركا سوى عم وشقينيسا سوى عم بقولة ها سوى عم وشقينيسا okay waa aad baad mahadsan